maanta dhan waxaan ka hadlaynay waxay ahayd waxna wada taabanayay na xanuujinayay qof kasta oo ka hadlayna waa toosiyey oo siduu u fikiraya ama siduu u arkaayo ka hadlay waxaan rabaa amni markii laga hadlaayo in ay tahay naf bini aadan ah ama maal uu qof ku soo daalay ama nafti bini aadamka ahaaba in meesha lagu weynaayo marka waxa aan rabno waxay tahay dhinac kasta haddii laga fiiriyo war naftaas ha la badbaadiyo si allaale sidii lagu badbaadin karana ha lagu badbaadiyo waxaan rabnaa annaga waxaan nahay mas-uuliyiintii dalka horta mas-uuliyad amnigu waxaa la yidhi waa mas-uuliyad wadareed dadka qaarkiis sida ay qabaan mas-uuliyad wadareed waxay u tahay dadka mas-uuliyiinta ah maahane shacabka ma u aha shacabka qaybtoodii way qaateen xaqiiqatan waayo waxaan ognahay ciidanka maalin kasta le-anaya ama maalin kasta markii qaraxyadu dhacaan soo boodaya waxaa la yidhi markii la tilmaamayo waa ciidan qabiil ciidan dowlad ma noqon karaan miinis waxay la mid tahay ciidankaas hadday qabiil yihiin shacabkii magaalada muqdisho deganaa wiilashoodii waaye wiilashoodiiyay bixiyeen shacabka naftoodiiyay hureen waxay kaloo bixiyeen canshuuray bixiyeen hooyadii guriga deganayd gurigeediia canshuur laga qaaday oo laga yaabay inaysan dab ka shidanin laga yaabay ilmaheeda inay iskuulka ka baxsan weyse ay soo tuugsato ama qof walaal ah ay weydiisato lacagta canshuurka laga rabay si ay u gudato waajibaadkii saarnaa oo amniga ka saarnaa hooyooyinka Soomaaliyeed markaasaa waxaa loogu bedelay dhibaatadaas dhacayso in la yiraahdo adigayba mas'uuliyadii ku saaran tahay mas'uuliyadeedii way gudatay hooyada mas'uuliyadu dhankeenay soo jirtaahe annagu aan isweydiino hooyadaas Soomaaliyeed wiilkeedii subaxii markuu ka baxo waad sidii saakay ku dhacday iyo si lamid ahaa ku dhacayso waxaa ku dhacayso hooyadii isbitaalka ay aadi lahayd inay jid u mari weyso billaahi calaykum ilaahay aan ka cabsano shacabkan maalin kasta aan isku tuurtuurayno sidii dhaga hadalkii inaan meeshaan u istaagno aan ku walamayno oo aan dhahayno mucaaradka yay waxba idiin sheegin mucaaradka idinla hadlaaye wallaahi oo billaahi oo tallaahi inaysan naga saarayn maalinta yowmul qiyaamo waana la weydiinayaa lacagtaas aan hooyadaas ka qaadnay mas-uuliyiinta qaarkood ilmahooda oo Yurub iyo Aasiya iyo Ameerika iyo Australia ku nool ay u dirsadaan ma lacagtaasaa xalaal ah ma lacagtaasaa xalaal noqonayso waana la weydiin maalinta yowmul qiyaamo waxa la isweydiiyo waxaa waaye maalka meesha uu ka yimid iyo meesha lagu bixinaayo wuxuu ka yimid hooyadaas ooynaysa oo dhibaataysan uu ka yimid ma jiro maanta inteena baarlamaan ku jirto ama dawlad ku jirto madaxweynahaba ha u weynaadee ilaa iyo prime ministerka ilaa iyo wasiirada boqolkiiba 10 ma dhama inta ilmahoodu ay inta ku nool yihiin hal xisaabiyo waa joogan hay-ado ku gaar leh oo xisaabiya waxaa jira niman mas-uuliyiin ah hoteello degan lacagta hooyadaas laga qaaday cunugiisa oo iskuul dhigta oo Mareykan iskuul ka dhigta u dirsada maba ogaba marka canugan kale laga qaaday waxa ku dhacaya ma ogo waa runtiis والله عذر دارaya xildhibaankaas intuu fadhiya ama wasiirkaas intuu fadhiya waayo saaka markuu gurigiisa ka soo baxay cunugiisu la hadlay baaba ma soo kacday haye iskuulkii ma tagtay hooyo iskuulkii ma ku geysay meel nabad uu jooga intay ka timid lacagtaas ma la isweydiinin aakhira waan la weydiinaya haday shacabkana weydiin waayeen waxaan la weydiinayo maalin aan annaga waxba isku tari karin waa maalin oo la dhahayo ma la yanfacu maalun wala banuun ina anfacaynin wiilasha aan ku faanayno iyo gabdhaha aan ku faanayno waxaan rabaa mas'uuliyadda amniga inaan uga dhiirigeliyo ciidanka amniga xaqiiqatan doorkooda way qaateen ayagoo baahan oo guryaha laga bixinaayo oo ilmahoodii aan dhakhtar geysan karin oo islaamahoodu aan waxba siisan karin ay amnigeena sugaan maalin iyo habeen hadda intaan ku jirnaa banaankay taagan yihiin amaanay mudan yihiin dhiirigelinay mudan yihiin waxay mudan yihiin inta loo dhiso 20 sano iyo 30 sano oo dawladayna ee marna daciif ahayd marna dawlad ahayn jidka noo taagnaayeen waxaan rabaa inaan halkan ka xuso xildhibaanad iga horeysay oo tiri shacabka Soomaaliyeed ama shacabka reer Muqdisho afar xaafadooda ahayd amnigana waa sugnaan jirisaan ma ahaan jirin waa xaqiiq ana Muqdisho ku dhashay ma ka dhax bixin waxbaan ku dhax bartay anigoo arday ah iyadoo dhibaatadaas ka jirta waxay la macno tahay marka dawladii markay timid amnigi la waaya la yiri maxay u timid waa sax shacabka shalay dawlad ma jirin adinka mas'uul iska ahaa la yiri maanta aan dhahno shacabo waxba idiima haynay mas'uul iska ahaada
lacagtiinni adinka isku ilaaliya xaafadaha ciidan ku samaysta aan dhahno haddaysan saas ahayn xildhibaanada qaarkood way qireen inay magaalada muqdisho xaafad ahayd amnigoodana ay sugnayd dadkii muqdisho ila joogayna waa ila qiraayaane dowladdaad mas-uuliyaddaas qaadee dowladda mas-uuliyaddeeda ha gudato dowlad markaan leeyahay waa xildhibaan waa wasiir waa madaxweyne waana wada saaran tahay waxaan rabaa inaan ka hadla arrinta oo amniga oo la leeyahay meediyaha ma laga hadli karo iyo ama wasiirada saaxiibadeen ah wasiirka amniga iyo wasiirka gaashaandhigga labadaba waa laba wasiir oo laba xildhibaan ah waa saaxiibadeen ma xuma ma qalbana dadka kama xuma laakiinse mas-uuliyaday qaadeen ha qirtaan mas-uuliyaddaas aniga hal jeeraa la dhaariyey isagana laba jeeraa la dhaariyey maxaa loo dhaariyey labada jeer maxaa dhaartii hore loogu day waayo waxay ku tusaysaa inuu mas-uuliyad labaad qaaday mas-uuliyad annaga naga dheer inuu qaaday ku tusee mas-uuliyaddaas naga dheer uu qaadaya waxaan rabnaa asagoo naga xumaanin annagoo isaga ku xumaynaynin inuu saaxiib fiican keensado shaqaalo fiican keensado la taliyo fiican keensado oo khibrad iyo ehel u ah waatuu ilaahay yidhi fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun waxaan inaadan aqoonin ceeb ma aha aniga arday jaamacad ka soo baxaa ahay business administration aa bartay saaka wasiirka gaashaandhigga haddii layga dhigo ma aqaani laakiin ma qaban kari ma dhahayo waa siyaasad waxaan keensanayaa rag khubaro ah oo cilmiga iyo aqoonta ay leeyihiin ehel u ah arrintan garbahaygaan soo fariisinaa waxaan leeyahay wax kasta oo ku saabsan ii soo qora ii keena waxaas hadday saxan yihiin markaasaan ku dhaqaayaa waxa xun marka wasiirka saaxiibkay ah oo ducaale iyo xasan ma ahane qaabkay u shaqaynayaana qalban ee istiraatiijiye saxan iyo saaxiibo fiican iyo yacni la taliyayaal fiican ha samaystaan waxaan ognahay wasaaradaha shaqaalaha ku filan in ay tahay $700 shaqaalaha wasaaradda oo ay dowladda ansixisay waxaa jira la taliyayaal ay dowlado kale islaameed lacag ku bixiyaan dowlad islaameeda waxay ku dhahday war la taliyo fiican samayso saan lacag kuu siiyo khibradiisa iyo aqoontiisa hadduu waddan kala jiro ka keenso 10 kunaan siinaa 7 kunaan siinaa 5 kunaan siinaa ina adeerkaahoo guriga joogaad soo wadatay oo adiga kula mid saan adiga yani ehel ugu ahayn oo asna ehel ugu ahayn lacagtii 7 kun oo lagu bixin lahaa ninkii khabiirka lagu bixin lahaa asi ku bixisay maxaa faa'iido waa jugjug meeshaada joog taasaa keentay xanuunkana wada taabtay taasaa keentay inaan isku wada ciidimino mideeda kale waxaa inta laga wada qiray inay dhibaato jirto dhibaatada jirto waa sax dadku isku mid ilaahay kama dhigin dadna waa ku dhiiran karaan waa sheegi karaan waxaana qaldanay dhihi karaan dadka qaarkiisna way dhibsanayaan oo waxaa meesha ka soo baxayo xadiiskii rasuulka oo ahaa man ra'aa minkum munkaran falyughayyir biyadihi fain lam yastadic fabilisaanihi fain lam yastadic fabiqalbihi wadalika adcafu liimaan waan rabnaa qalbiga yani ha idinka dhibto laakiin mararka qaarkood in meeshaan la soo istaaga shacabka yaa lasii dhaawicin dhaawac moral yaa loo sii geysanin annagaa idin hadlayna haddaydan hadli karin annagaa idin hadlayna haddaad waxyaabo kaloo isdiidan aad ilaalinaysaan haddaad wax xeerinaysaan annagaa idin hadlayno laakiin bilaahi calaykum shacabkaas dhibaataysan hooyadaas jidka ku dhalayso wax ma qaldan yihiin mase ma qaldana yuusan shaki naga gelin laakiin sidee u saxaynaa aan iska waraysanno aan isugu nimaanno aan xildhibaan gaafo waadaa yiri gacmo geeljir hoosaa loo dhaqaahe mas-uuliyaddan waan qaadnaye aan wada qabanno sidaa u wada qaadna ha ahaado xildhibaankana oversidekiisa ha samaysto wasiirkana shaqadii loo diray yuu xildhibaannimo iyo wasiirnimo ku marmarsiyoonine shaqada ha qabsado hadduusan xitaa aqoon u lahayn dad aqoon u leh ha keensado marka waxaan ku talinayaa in arrintaas mas-uuliyaddaas sidaa u wada qaadna ay ahaato laakiin shacabkaas soomaaliyeed shacabka reer muqdisho aanan loo gafin aan loogu darin isbitaal la-aanta waxbarasho la-aanta dil inaan loogu darin ciidanka soomaaliyeed waxaan leeyahay shacabkaas waa kuwii aad ilaalinaysiin yaani lii adeegsanin yaani la dhihin argagixiso waaye iska ilaaliya shacabka oo dhan argagixiso ma aha dowladda soomaaliyeed iyo dadka mas-uuliyadda u qaadee waxaa la rabaa ardayda iskuulka joogto inay iyaga intelligence ku dhex darsadaan ardayda hooyada ganacsadanayso iyagaa la rabaa inay intelligence ku dhex darsadaan shacabku say mas-uuliyadda u qaadayaan wiil arday ah maa soo sheegaayo nin shabaab ahoo wax qarxinaayo marka waxaan rabaa walaalayaalow mas-uuliyaddan wayna wada saaran tahay wallaahi bilaahi qiyaamana waa nala weydiinayaa marka aan isla qaadno mas-uuliyadda waa mahadsan